effective from 11 November 2025. Overflight or entry without a period authorization is not permitted in airspace. Go ahead. Copy that. Next time we'll follow your section and I will. يا حمر كواحد هان مرة كانوا كله ولا جري دونه ويش قال لي هيرو ولا جري دونه ويش قال لي هيرو أنا قلنا واحد لهنا والشرابة عكارو إيمان بيدا هذا الشيء وحوي إن جمهورية الصومالي اللي أنا بركاي سني وحاجة سوقاري معلمهان دقنينا وين إن قرب لو كاني هو الصومالية أي تشوش كفريسو gacanta xasan wabiirna ay kaga saarayso dhammaanba diyaaradaha hawada mara haddii aan loo hoggaansamin qaanuunka iyo kala dambaynta iyo shalay isla ogolkii lagu hawada ee xamar lagu geeyey maanta waxaanu aragnaa digniintii ugu dambaysay inay bixinayso diyaaradaha hawada maraya ay digniin siinayso leedahay maanta waa kama dambaysa soo laaban qalabkaas waxaa lii sheegay hadda ka horna waagii Muuse Biixi mar la kala baxay mar loo diiday diyaaradda baashi muxuu ahaa Ethiopia loo diiday hawada mar la kala baxay 30 milyan baa dhowr maalmood gudahood la khasaaray haddana cirra waa rakibtay baa la yiri qalabka Taiwan baa keentay tush wuxuu ku furayaa hagida Soomaaliya diyaaradaha wuxuu ka labin doonaa sida la ii sheegay ruudka shilal baa ka imaan doona waagaasna shil baa dhici gaaray oo waxa isku sugtay laba diyaaradood oo midna tahay Turkey Airways من قطر Airways تاعي أسوستي كدي مرة الحادية يقولي بالله دري هرجيسة تجي موسى فرحان له بالي وحاجة وراقو هاتن وحنا بقول له دقنين تي قدام بيزايي بحصي جمهورية سوماليلاند بركة لسان waxa sugnaaba waa maalinka biri ah iyo tilaabada ay qaado iyo saameynta ay yeelato ama qalabkoodu wuxuu noqonayaa bahal iska niic oo hawada meeshaan soko hadii aan ku rooyay helicopterada maraan bahal aan dhaafin buu noqonayaa ama xaqeeda ku dhacsanaysa annaga halkaas hadii la markaa saa u fiirshay waxa Taiwan laan baa la isku dhaaf annagu Taiwan ma haysana moogta mar walaanu saas kala samayn lahayn laakiin jamhuuriyadda Somaliland ayaa annagana hadday wax kaagaan hawada iyada hadda idin sheegay hawada Puntland jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka noqon doonta inta aanu qarab Taiwan oo kala helayno walaalayaal reer jamhuuriyadow idinka hawada noo maamuli doona qaybtayada ku dara qaybtayada waxa la sheegay ilaa gaalkacyo ilaa dhuusamareeb inay qalabka ay haystaan awood u leeyihiin khalkhal galiya war hadda waxaan leeyahay hadda jamhuuriyadda la sii hadlaya war jamhuuriyaday adaa guulaysataan naga war haya annagu Taiwan ma haysanne oo baasha noo fikfaaxiya oo annaga saamiga iyaga idinka noo haya guulaystaan leeyahay jamhuuriyadda mooryaan baa xamar haysata ku qaraabanaysa waxaan ognahay akoon gaar ah in EFC fiisadii loo furtay marnaba markasta waxaan garab taaganahay xaqan garab taaganahay xaqu waa xaqee waa jamhuuriyadda la cuna qabataynayo la dhibaataynayo ee dhammaan ummadda Soomaaliyeed la dhibaataynayo ee lacagta laga meeranayo hadii la ku rooyahay iyo shalay wixii isku ogolka lagu ahaa ee hawadii Soomaaliya ee shalay ayadoo la wada ogol yahay oo Somaliland kamid tahay oo Puntland kamid tahay oo koonfurta Soomaaliya Mooryaanta jooga kamid yihiin inta la sii yimid la yiri war Soomaali baan hayaan gacmo shisheeye hawadana noo hayn xamar aan dhigano oo isku ogol oo lagu saxeexay maanta in lagu dhibaateeyo shacabkii oo la yiraahdo gabdhihii uurka lahaa iyo gabdhihii hadii la ku rooyahay dhalayay iyo caruurtii ee la boorada caalamka looga reebo oo leeyahay EFC sama wadatin taasi waxa weey ayaan daraweyn weey tilaabo kasto lagu soo celinayo burburnaad deerabtee dhulka Soomaaliya dhulka ka bireysay deertee tilaabo kasto lagu soo celinayo in loo maro xaq bay u leeyihiin waan ku garab taaganahay reer Somaliland guulaystaan leeyahay bal birbaan sugnaa haddii qalabkaasi qalab waa weyn oo noqdo wax difaaca war annaga nagu dara difaaca nacala shaydaanku yaa idinka Taiwan haysta anagu